وانا السلامي خيارة شرفت له بشير موسى عشرة دي سي عند هوري وبرتين channel كرونت وكالي وحنا الله يسعده وهذا مركله وحين عشرة دي هوري انتين إلى سعودة عاد كسو برتين عشر كسابسان إلها بايبلكو ما إلها قرآنكم مسكمت بعض مركا arrintaas ayaan ku sii socon doonaa waxaad soo qaadateen aynu hore u soo maray cashirka saddexaad ayaynu ku jiray marka cashirka saddexaad qaybta koobaad qaybta labaad qaybta saddexaad maanta qaybta afraad baan u gudbo doonaa marka waa cashirka saddexaad qaybtiisa afraad ayaynu maanta qaadan doonaa haddii alla idmo weli waxaynu ku dhex jiraa kitaabka bibleka iyo qaabku ilaahay isku muujiyey ayaynu weli ku dhex jiraa bal aynu ku soconno fadlan ila socod marka sidan ay leeyihiin ayadaha tawreed ayaynu akhrisan doonaa waxay leeyihiin sida ثم سعد موسى وهارون وناداب وأبيه و70 من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه الصنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقع ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا ساعية لهذا مركا نبي موسى أيو إلهي مرتقاضي oo wuxuu ugu yeeray in uu buurta ugu yimaado isaga oo soo kaxeeyay ma garanaysaa Haaruun oo ahaa gacan yarihiisa ama gacantiisa midig Haaruun islaamka iyo masiixiyadu juudismku way ku kala duwan yihiin oo islaamku wuxuu ugu yeeraa nabiyada ambiyada ayuu ku daraa laakiin kitaabka bibleka ambiyada kuma tiriyo Haaruun wixii Haaruun ku soo degay ma jiro wuxuu ahaa afayeenkii nabi muuse ayaa sida kitaabka baxniintii cutubka saddexaad aan ku soo maray markuu ilaahay u yeeray uu soo bax nabi baan ka dhigayaayo fircoon baan ku dirayaaye uu diiday nabigu wuxuu yiri eebo arinta ma karaya iga daa fadlan iga daa wuu diiday wuxuu markii dambe yiri eebo anigu waaban carab la ahayba qof carab la ma diraysaa oo dadka waxba ka dhaadhicin karinin buu yiri markaas uu eebo ku yiri soo kan ku agtaagan maaha in adeerka Haaruun isaga ayaa ku noqon doona afayeen marka fariinta aan ku dhiibo isaga u dhib isaga dadka la hadliya marka afayeenkaaga ayuu noqon doona ayuu ilaahay ku yiri afayeen in la yeesho halkaas ay ka timid maanta waxa arkaysaa afayeenka baarlamaanka afayeenka madaxweynaha madaxtooyada afayeenka meel kasta xafiisyada dawladda oo dhan waxay leeyihiin qof u hadla oo saxaafadda ma garanaysa la hadla oo loo xil saaray inuu communication u noqdo iyo shirkadaha waaweynba qof kasta iskama hadlo oo meediada wuxuu doono kama sheego dawladaha iyo shirkadahaba sharciyo qabta ayaa jira qof arinta lagu talagalay ayaa jira oo arintaas gudbin kara marka wuxuu yiri ilaahay afayeen miyuna ku ahayn marka saasu Haaruun ku yimid marka wuxuu ahaa afayeenkii nabi muuse marka eebo wuxuu ku yiri muusow Haaruun iyo 70 xuqaashi iyo wax garadka reer bani Israa'iila soo kaxee oo halkan buurta ay ugu keen marka way soo baxeen halkaas ayay tageen marka waxay leeyihiin aayaduhu fara'u ilaaha Israa'iil rabbiga Israa'iil ilaaha Israa'iil ayay arkeen cagihiisana waxaad moodaysaa bay dhaheen sida macdanta bulluraal macdanta ma garanaysaa mineraalka ee qaaliga ah ee bluega ah oo kale wax saas oo kale ayaa cagaha ugu jiray cagihiisuna cagihii bay safeynayaan waxaad moodaysaa cagihiisana macdanta bulluraalka ee qaaliga ah ee rubiga oo kale sida rubiga oo kale ee qaaliga ah oo ma garanaysaa blueg sida oo nadi aad saafi oo ah sida samada oo kale bay dhaheen marka culimadii iyo cuqaashi reer bani Israa'iil gacanta muna u qaadano muna dhibaato u geysan wala yimid yadahu ila shuyuukh bani Israa'iil gacan muna u qaadin meesha gacan qaad ma jirin martiqaad bay ahayd ilaahay uu martiqaaday marka fara'u ilaaha Israa'iil fara'u Allah mar labaad bay ku timid marka hore waxay dhaheen fara'u ilaaha Israa'iil bay arkeen hadana waxay leedahay fara'u Allah wa akalu wa sharabu ilaahay bay arkeen wayna cuneen wayna cabeen
ما يجو إلهي وحلا عني وحلا عبي مس ميل جوني أبو كسوري لما شفاه فاهين ها وحاب مقتل لكن إن إلهي أركان وماشى بورته مرتقات سوريا الشرفات قاد الشرفات لو سميه أي هالكا عنتك عنين وحنا كعبين فاهم زعم مركا سداس أيو إلهي اسمه waxaynu horay u soo maray inuu Ilaahay Nabi Muuse ka diiday wajigiisa in la arko marka waxa muuqata inayna wajigiisa arag sababta hadii kale ereyga Ilaahay uu istuqaynaya oo iska hor imanaya in la yiraahdo Ilaahay bay arkeen hadana Ilaahay lama arki karo wax meesha la eg ma aha ya waxa muuqata in qaab ismuujin ah oo wajigiisa ahayn laakiin ay Ilaahay ku arkeen waa Ilaahay wuxuu yiri wajigayga lama arko لا يرى الإنسان وجهي فيعيش قف وجهي أركين من نولعه أيو إيه بكوير مركا ربك أيه أركان إلهي بي أركان مركا يجا شرف وين بي واحد شرف وين بي يجا واحد وحويا مركا كتابك بحنينتي عتبك لباتني أثر آيات السجالات إلى آيات الله يتمنادوي أنكوسي صعد مركا آيات كلا واحد لا ده أنا خريو يا نكو أخريو ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانويل يا كبد ربك سيد كوه رير بنا إسرائيل وربك سيد كين أهو معجزة وين إي آيات أيو إذن سين دونا أقول وحن ولق يدعين آيات عدونا gabadh bikra ayaa uureysan doonta ha alcadraa'u taxbil gabadh bikra uureysan doonta watalidu ibnan wiil ayay umuli doontaa wayudcaa Emmanuel magaciisana waxaa la yidhaha Emmanuel marka waxaa weeye ilaahay baa inala joogay God is with us yay noqonaysa af ingiriisiga ama Allahu macana ilaahay baa inala jooga marka wiilkaasi وويل إلهي أهو إلهي كيمت ويل عادي وما هبا ها أبد ولادكم أبترس هذا جوار بكرة ولا تابع نينو بني آدم ودواني بعد شيء مركب ويل spiritual أها وحد شرقة تيوي أنكو سعلا وإشعياء كتاب نبي إشعياء من نبي إلياس هذا القرآن يقان عتب كتطوات آيات أفريد تبنات إسلا عتب كاس وحا قرآن سدن لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا والرئيس السلام ياب شيخ ياب ويان ويل أيا لينود علي دونا أيو النبي يقول له وحي إلهي أوي والنبي إلياس وكوها الله لأنه يولد لنا ولد ويل با لينود عليا ونعطى ابنا ويل أيا لينا سينيا ها يما هو سلا آيات دي وفافاسن وي وتكون الرئاسة على كتفيه بقرنماد وقرباه كسارنتها ويل كاس وويل بقر أويان ويل بقر أو بقرنماد أي قربها كسارنتها سدا حدقها سراكيشة قربها لو طلو كله ويان ويدعى اسمه وحال يابل مجي عيسى ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا والرئيس السلام مجي عيسى وكا مجا دير بوليه عجيب وحلا يابلوي يا عجيبا بالورنا يا مجي عيسى ويدعى اسمه عجيبا مشيرا مشير وحويان كلا للشوري وي عقونتا إيه حكمة لقى هلويا مشير يا سوما قرنيس عجيبا مشيرا وحكاكا سيدرا إلها قديرا إله قادر أيا ويان مقعيس وإله قادر وآمن أبديا وأنا أبد دائم إيو مدحم نبض ويان والرئيس السلام مقعيس وكا مركا وإله قادرة وآبا دائمة وأنا مدحا نبض وكان نبض السماوي هذي نقطة إلهية دتك أي هذي نقطة دتك الحدود وكان نبض السماوي مركا سيدا آياتها كعب عيسى المسيح قف عادي معين وحيجي كهري سجت تطابق قولوا صنع ياسي الشيء
يا وحيجني توراة ويان كتب أنبياء ويان أو نبي الشرعية أيال الوسود شيء عيسى المسيح بوصي شيء وجوار بكرة أكد لهم دونه ويهي قف عادي أو سنهين وبني آدم عادي أو سنهين ويهي إلهي أو تشد قاتي وسدا ويدعى اسمه إلها قديرا إسلامك تاسع قال لما كوش جينا عيسى المسيح إله لو يرى وقال لي بالي إسلامك ماشى واحد عادي كراش يا عادي ما ده حال إسلام قال ماشى لكن بايبلكم توراة ويان إلها قديرا كبر بكرة ولا يسند دونت ويل بيدل دونتا ويل كاسنا وإله قادر ويان سيما وإله قادر قف بني آدم هو عادي معها ويل كبر بكرة كذا شيء بني آدم عادي ما هي وإلهي يبني آدم وذا الصعد وي ساسي توراتري إنجيل كنا تاسكم مرخاتك عين وحوليه بلوجي واحد شري أريجا وإنجيل كيوحنا آياتها ugu horeeyay bilowgii waxa jiray ereyga wuxuu la jiray ilaahay ereyguna wuxuu ku jiray ilaahay bifahmaysaa ereyguna jid buu qaatay oo uu ina dhex yimid aayad 14 marka sidaa weeyaan injiilku waxa weeyaan injiilkuna saas u sheegay sidii ay tawreed u sheegtay ayay u dhacday isla qisadii in maryama oo bikra ah uu malaku jibriil u yimid uu yiri maryamaay nabad baad xagga ilaahay ka heshay waad uuraysan doontaa oo wiil baad umuli doontaa magaciisana waxaad u bixin doontaa ciise oo wuxuu noqon doonaa boqor oo waxa lagu yeeri doonaa wiilka ka ugu sareeyo wa ibnul ali yud'a marka inuu ciise masiix waa kuma aynu 10 ka gallo ayaynu ka aad u faahfaahin doonaa hadda waan halkaasaan ku dhaafaynaa marka caadi ma ahayn wiilkani waa nabinimo ama wax si sheegid boqolaal sano ciise masiix ka horeysay inuu ciise masiix uu ahaa ilaahay oo ismuujiyay oo ilaahay iska muujiyay waxaad isweydiin kartaa siday suurtagal u tahay inuu ilaahay bini aadan iska muujiyo geed miyuuna iska muujinin oo miyuuna geed kala dhaxal nabi muuse geed koronto oo iftiimaya intuu ilaahay isku soo muujiyay miyuuna geedkii kala dhaxal muuse ma geedka quduusa meeshan aad ku taagan tahay waa meel quduusa kabaha ka bixi baa lagu yiri ilaahay geedkaas uu kala ka dhaxlayo geedkaas dabka oo ololaya ayuu isku muujiyay waxaad soo qaadatay oo ku aragnay inuu ilaahay reer bani israa'iil tiir daruura isugu muujin jiray oo maalintiina tiirkaas uu cadceedda iyaga ka dabooli jiray habeenkiina tiirkaas uu dab noqon jiray habeeniya maalinba way socon jireen reer bani israa'iil markay masar ka kaceen habeeniya maalinba way guuri jireen tiirkaas hor socon jiray يعني إلهي أو تير إسكدعي تير كاسة يجو أركيين أيها هرس عن شري مركب حوين إلهي قابب كل الدوام بدت كيس إسقو موتشيا إنه مركب شركة بني آدم كإسكام موتشيو وقف بني آدم أو إسكدعو محد ديديا ملوتشك بعد ديديا واحد ديديا مشرا يعني مسلمين تا أيان الله الله يا واحد لوتشك ودي ملك جريل باب بني آدم إسكدعي سدا إسلام كقبو مركب هدوم ملقي إلهي أبوري وإلهي وأديجها إلهي وبناء سقوا ملقه روح وتشر قادن كرو كي ملق أبوري ميون تشر سو قادن كرو بني آدم إسكدعي كريم إلا وإن الله على كل شيء قدير وسدا ويان وحديث كي درايا 40 كوات قرنيسا وحي داهن جاءنا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه آثر سفر وحنويمد وحديث 40 كو أصحابتي النبي محمد بارونيسا وحنويمد نن درآد وعد عتقبة أو تمآد مذوله أون لقى أرق لا يرى عليه أثر سفر إنه سفر سوق عليه مودين بقى أو سفر كوات قناة تيف يبور يقاتشو يهرات بقف كم مقدة جد كي بقف كم مقدة يرفعت كي لكن يمكن واحد مداينه حتى كصباحي هوتيل 5 ستار هو بو يقرنيسا فريش بوها سفرنا كم مقنن فقال يا رسول الله يا محمد أخبرني عن الإسلام بكوير محمد وإسلامك إيجا شاكي فأخبره مركز النبي وإسلامك إيجا شاكي محمد وإسلامك إيجا شاكي بكوير مركز النبي وإسلامك إيجا شاكي فقال صدقت رمبات شاكي بكوير يا فسأله عن الإيمان ما الإيمان بكوير فأخبره فقال صدقت فعجبنا من أمره مركز وان لي ابن بديه يسأله ويصدقه intuu weydiiyay ayuu oranaya markuu nabigu u sheego waasaa weeyaan waa run baad sheegtay macnaheedu waa maxay wuuba sii ogaaba waxaanu nabiga weydiinayay weeyaan markaasaan facajibna min amri waan la yaabnay ninkani muxuu yahay niyo ثم
waftarak wuu tegey markuu naga tegey ayuu wuxuu ku yidhi nebigu hal tacrifuuna rajul ninkan ma garanayseen faqulnaa allah warasuulu aclam ilaah iyo rasuulkiisaa naga og baanu ku nidhi yay dhaheen faqaala daaka kaana jibriil buu ahaa malaku jibriil buu ahaa aataakum liyucallimakum umuura diinakum wuxuu idinku yimid inuu diintiina wax idinka baro malaku jibriil oo nin iska soo dhigay waxaa xadiiskaasi waa saxiix weeyaan kutubta saxiix ayuu ku labada saxiixayn baa ku yaalaa marka malaku jibriil oo malag ah oo ilaahay waxyiga ka soo qaada oo maryamaba isu muujiyey maryamaba isagoo nin abu u yimid quraanka iyo injiilku waa isku waafaqeen fatamahala laha basharan sawiyan qaalat inni acuudu birraxmaani in kunta taqiyan ninbuu isaga soo dhigay suuratu maryam ayay malaku jibriil ninbuu isaga soo dhigay markaasay ku tiri inni acuudu bika birraxmaani in kunta niyo haddaad ilaahay ka cabsanaysa iga fogoobay ku tiri waniyo haddaad ilaahay taqaano ha ii dhowaana iga leexbay ku tiri فقال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما سكيا وحنا رسول إلهي صدري أو فريم من كوسدا وحن كوسدا لأهب لك غلاما سكيا ويل أن دم بلهين ينكو وضاه أيو كير مركا سورة مريم ما لا بدن بكسو عروت قصة داس ملك تجري مركو إنه مريم الله سبوا ننأ وان ملك هين نن إسكا صدقي يا مركا malaku jibriil hadduu nin iska soo dhigay uu jidh soo qaatay bini aadan si uu communication ula yeesho dadka ambiyada kii malagga soo diray malagga abuuray inuu jidh soo qaato dadkiisa la hadlo maxaa diidayaa waa su'aal meesha taalla weeyaan wax diidaya ma jiraan wax diidaya ma jiraan marka waxa weeyaan tawreed iyo injiilba waxay leeyihiin ciise masiix wuxuu ahaa ilaahay oo jidh soo qaatay hadalkii oo kooban meesha buuq badan baa ka dhashay waxa weeyaan islaamku aad buu u weeraray fikirkaas inuu ilaahay jidh soo qaadan karo oo la arki karo way inoo iman doontaa quraanka ilaahay kumuu ahaa ilaaha quraanka iyo ilaaha bible kuma isku mid baa hadda bible ku jira markaan quraanka u gudubno adaa arki doona sawir totally ba kan ka duwan baa yaa ku iman doona marka waxyigii tawreed gabadh bikraa ay oreysan doonta wiil bay dhali doontaa wiilkaasina wuxuu noqon doonaa ilaahay waa ilaahay ayay uu leeyahay kitaabka bible-ku ilaahay oo jir soo qaatay wayudcaa ilaahan qadiiran magaciisana waxaa la dhahaa ilaaha qaadirka waa aban abadiyan iyo aabba joogta ah weligiiba aabba ah marka waa qiso la yaab le weeyaan oo runtii la yaab leh inuu ilaahay jir soo qaatay uu dadkiisa u yimaado waa qiso waa arrin cajiiba weeyaan waxay leedahay kitaabka bilowgii warqadda cibraaniyiinta waxay leedahay bilowgii ilaahay aabbayaasheen ayuu kula hadlay nebiyadiisa quduuska ah isagoo qaabab kala duwan ugu waxyooday laakiin aakhir zamaanka ilaahay wuxuu dadkiisa inoogu waxyooday wiilkiisa ereygiisa ah kaasoo wax walbaba awoodiisa leh oo samada iyo dhulkoonka dhanba uu awoodiisa u dhiibay ayay leedahay marka waxyigii u dambeeyey ee ilaahay theory intuu ka gudbay ayuu jir soo qaatay oo qof noqday ayay leedahay marka waa cajiib weeyaan runtii waxyigu inuu qof noqdaa ka fiican maqal iyo muuqaal inuu noqdaa ka fiican inuu noqdo fikir theory ah oo mujarrad ah ya marka saasuu ku yimid fikirka kitaabiga ah bible-ka judo christianity uu ku salaysan yahay waa sidaa ilaahay aabba weeyaan dadkiisu jecel yahay maxaan ku idhaahaa jidh buu soo qaatay waa la arkay waa la raacay waa lala cunay ya waxa weeyaan sidaasuu isu muujiyey ilaaha bible-ku ibraahim buu u yimid isagoo 3 nin iska soo dhigay waxbuu la cunay waa la sooriqaad baa loo sameeyey ya saasuu ilaahay bible-ka isku muujiyey waa aabbanimada aflagaadame waa magacii uu ugu jecel yahay ya wiilkayga israa'iil siidaa buu ku yidhi fircoon israa'iilna waxa weeyaan waa reer bani israa'iil ya injiilkana waa ka jidh buu soo qaatay oo uu yimidba ilaahay oo jidh wata oo ma garanaysaa oo caqiidada masiixiyadda ilaahay waa saddex weeyaan 3 shakhsi weeyaan 3 persons oo 3 shakhsi oo hal ilaah isku ah weeyaan الآب والابن والروح القدس آبها يويلك يروح القدوس كا واسدا
so islaamka ilaahay magacyaba kala duwan ma laha oo walillahi al-asmaa'ul husna fad'uuhu biha samahayn ya allah ar-rahman ar-rahim samahayn marka bisinka bismillahir rahmanir rahim soo lama dhaho saddex ilaah baa la sheegaa bismillahir rahmanir rahim markaan dhaho ilaahay kaasoo ar-rahman iyo ar-rahim weeyaan waa isla isagii uun marka al-aab wal ibn wal ruux al-qudus waxa weeyaan hal ilaah baad sheegaysaa wali saddex ilaah ma aha ya saddex ilaah ma aha islaamku iyo quraanku saddex ilaah buu u fahmay waxa la yiri wala taqulu thalatha saddex hadhina inma allahu ilahun wahid ilaahay waa mid saddexnimada joojiya intahu khayran lakum ka joogsada waxaas way idin wanaagsan tahay saddexnimadu waa gaalnimo iyo shirki joojiya lagu yiri intahu ka joogsada arintaas way idin fiican tahay ya marka quraanku aqeedada masiixiyada saddexda malku holy spirit ayuu intu ka saaray ayuu meesheedii maryama ku bedelay marka maxay noqotay al-aab wal wal ibn saasay noqotay aabe iyo hooyo iyo wiil saasay noqotay aabe iyo hooyo isu galmooday wiil dhalay saasay soo booday a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim ya quraanka iyo aqeedada islaamku qaabka ay trinity-ga masiixiyada u fahantay waa sida waa family weeyaan waa qoys laba waalid iyo wiilkoodii ay dhaleen galmada ku dhaleen waxaas ma ilaahay ba ma wax ilaahay loo nisbeeyaa ma wax ilaahay loogu yeedhaa masiixiyadu aad bay uga fogtahay waxaas shaqana kuma laha aabaha iyo wiilka iyo ruuxa quduuskuuna waa spiritually waxa way faba yaraata wax physical oo laga hadlaya ma jiro ciise masiix oo wiilkii ilaahay oo ereygii ilaahay ayaa waqti kooban jidhka qaatay oo incarnation sameeyay ama tajasud si uu qurbaan dami dhaaf u noqdo ilaan ereyga intii la qabto isku talaalagu ma qodba kare ereygu waa inuu jidh buu qaatay ereyguna jidh buu qaatay uu inoo yimid waa injilka Yohana cutubka koobaad aayad 14 ereyguna jidh buu qaatay oo uu inoo yimid si isku talaabta loogu daldalo oo qurbaan dami dhaaf u noqdo ayuu jidhka u qaatay saddex maalmood kadibna qabrigu ka soo sarakacay qabrigii ayuu ka soo sarakacay oo jidh kale oo kii samada aabu qaatay oon meel celin karin oon dhimasho karin oon albaab celin karin oo graafigu u talinani ayuu qaatay oo meel kastu ka muuqanay oo xirtiisa ayuu meel kala duduwan iyagoo kala joogo isu wada muujiyay nidaamisa markaas la yaabay waayo sidan uu ahaaba markii bilowgii markii uu adeega bilaabay dadku ilaahay bay ka dhaxarkeen waxa weeyaan kaana yakhluq waxbuu abuurayay dad buu kicinayay dhintay dadka dhintay buu soo kicay ilaahay muxuu sameeyaa dadka dhintay buu soo nooleeyaa koonku maamulaa dabeecaddu xukumay waxa dhacday maalin iyagoo badda Galiil dhex socda oo doon watay duufaan ku kacday doontii baa sidaa wadoonyi hore la ashqaaye qoriyaha sidaa dhinacyada laga waxayn jiray markaas ay biyo ka buuxsay markaas ay sayido waanu halaagsanay waanu qarqoonay miyaadna badbaadinay bay dhaheen xagga dambu hurday markaas uu iimaankiina awey intuu sare kacay ayuu biyihii iyo dabayshiiba aamusa ku yiri shib markii way aamuseen dabayshiina shib bay tiri biyihiina way degay markiiba waxaa dhacday xaslooni duufaantu way istaagtay waa in 1 second weeyaan ilbiliqsi weeyaan markaasay argagaxeen oo dhahan man huwa hada warninkani waa maxay inna tabiicata tudiicuhu bay dhahan tabiicada iyo nature-ka ayaa u hoggaansan bay dhahan tabiicada iyo nature-ku ayaa u hoggaansamaan ilaahay in bay u hoggaansamaan kii abuuray ayaa maamula kaasa duufaanta aamus oran kara oo roobka aamus ku oran kara oo dhulgariirka aamus ku oran kara oo buuraha qaajin kara marka sidaas uu ahaa marka ciise masiix saas uu ahaa marka ay gaadhno kumu ahaa 10 ah inoo soo socda ciise masiix kumu ahaa islaamka kumu ku ahaa bible-ka kumu ku ahaa ahdiga hore iyo ahdiga cusub kumu ku ahaa 10 noocaas oo dheer baa inoo iman doonto oo xalqado kala duduuni ah oo socon doona ayaa inoo iman doona marka fadlan ila soco oo saa ila soco 10keeni maanta halkaas ku dhan yahay waa 10ka saddexaad qaybtiisa afraad weeye sida iyo ismaqal dambe